maamulka Puntland ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay kaga hadashay xaaladda amniga iyo xiisadaha siyaasadeed ee kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo sheegtay in waxa loo yaqaan Puntland Security Force uusan sharci ahaan ka tirsanayn ciidamada difaaca Puntland. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Puntland ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyo ay ku eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay ku tilmaamtay isku dayo lagu horinayo colaado laguna wiiqayo hay'adaha amniga iyo maamulka Puntland. Puntland waxay sidoo kale sheegtay inaysan jirin ciidan si sharci ah uga diiwaan gashan magaca BSF oo ka tirsan qaab dhismeedka ciidamada difaaca Puntland. Sidoo kale waxay cadeysay inaysan jirin ciidamo si rasmi ah uga tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka howlgala deegaanada ay maamusho Puntland. Madaxtooyada Puntland ayaa war-saxaafadeedka ku sheegtay in dhaqdhaqaaqyada ay ku eedeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay halis ku yihiin xasiloonida iyo nidaamka dowladda Puntland isla markaana ay ka digayso tallaabo kasta oo lagu wiiqayo awoodda ciidamada difaaca Puntland. Puntland ayaa sidoo kale ugu baaqday dowladda mudug iyo beesha caalamka inay ka hortagaan colaado iyo dhaqdhaqaaqyo hubeysan oo ka dhici kara deegaanada xuduudaha iyadoo ku boorisay galmudug inay sii wado iskaashiga amniga daris wanaaga iyo nabadgelyada labada dhinac. War-saxaafadeedkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan arrimaha amniga, dastuurka iyo awood qaybsiga. Cabdiqaadir Axmed Cali waxaa dhammaaday sharciyadii iyo hay-adihii federaalka Soomaaliya iyadoo 14 Abriil iyo 15 May ee sanadkan uu ku ekaa muddo xileedkii golayaasha baarlamaanka iyo madaxweynaha federaalka. waxaa nasiib darro weyn ah in aan ilaa iyo hadda oo aynu joogno 15 Juun aysan jirin wax wada hadal ah iyo heshiis siyaasadeed oo laga gaaray sidii looga gudbi lahaa xilliga kala guurka siyaasadeed ee ay galeen hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka. golaha xukuumadda Puntland wuxuu 22 May 2026 soo saaray in Xasan Sheekh Maxamuud loo aqoonsaday madaxweynihii hore maadaama uusan haysan sharciyad iyo heshiis siyaasadeed oo xafiiska ku sii joogo. golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo isugu jira dowladda Puntland, dowladda Jubbaland iyo madasha samata bixinta Soomaaliyeed wuxuu juhdi badan iyo tanaasulaad geliyay sidii heshiis siyaasadeed looga gaari lahaa qabashada doorashooyin heshiis lagu yahay ee hay'adaha dowladda federaalka kuna qabsooma waqtigeeda. nasiib darro waxaa arrintaas si cad isu hortaagay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Puntland waxay kaloo soo bilaabo marka laga soo bilaabo bishii December 2022 ka digtay jihada khatarta ah ee madaxweynihii hore uu u afduubay taladii hay-adaha federaalka dalka. Puntland ayaa ka hortimid qorshayaal oo Xasan Sheekh Maxamuud ku doonayay inuu meesha kaga saaro hannaanka federaalka kana leexdo tubta dowlad dhiska Soomaaliyeed. dowladda Jubbaland ayaa iyaduna ka biyo diiday afduubkaas siyaasadeed iyo sharci ee madaxweynihii hore dalka u jiheeyay taas oo keentay inuu meesha ka saaro hannaankii labada heer ee federaalka dalka asagoo sheegtay inuu bedelay dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012 isla markaasna fargelin iyo dagaal toos ah ku haya hannaanka amni iyo maamulka gudaha ee dhammaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud asagoo uga gol leh inuu guud ahaan amniga dalka gacanta ka baxo si uu uga gaaro dana gaaban iyo masaalix waqtigeedu soo bixi doonto wuxuu si bareer ah ugu abuuray burcadbadeed xeebaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Puntland oo ay ogtihiin dhacdooyinka ka dhacay bilihii la soo dhaafay. wuxuu horay duulaan hubeysan ku qaaday magaalada Raskamboni ee dowladda Jubbaland asagoo halkaa ku dilay muwaadiniin Soomaaliyeed iyo in ciidamadii uu khalday ay isu dhiibaan ciidamada amniga ee dalka Kenya. wuxuu sidoo kale afgambi siyaasadeed iyo khalkhal amni ka sameeyay magaalada Baydhabo asagoo xoog ku muquuniyay meeshana ka saaray nidaamkii maamul iyo kala dambeyntii ka jirtay. wuxuu jajuub iyo afduub iyo xarig iyo dil ku hayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan wuxuu weerar ku qaaday madaxdii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo si nabad ah ugu sugan guryahooda oo degan yihiin magaalada Muqdisho.
sida aad la socotaan madaxweynihii hore wuxuu hagardaamo iyo in uu fashiliyo isugu dayey kacdoonkii shacabka ee magaalada laascaanood ka dhacay bishii Diseembar 2022 ilaa Agoos 2023 asagoo markii dambana isku dayey in uu colaad siyaasadeed iyo kala qaybin bulsho dhex dhigo dadka walaalaha ah ee guud ahaan Puntland ku nool hase yeeshee garashada wanaagsan ee shacabka gobolka Sool iyo guud ahaan Puntland ayaa ka fogaaday in ay dhacaan dhagarta madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale Xasan Sheekh ayaa isku dayey in uu fashiliyo halganka ciidamada geesiyaasha ee Puntland ay muddada dheer kula jirtay cadowga argagixisada Daacish asagoo is-hortaagay ku sameeyey taageerada iyo saad kala duwan oo aan ka heli lahayn qaar ka mid ah saaxiibada caalamka wuxuu kaloo calqaradayn joogto ah ku sameeyey diyaaradihii ciidanka ka gacan siinayay dagaalka iyo kuwii dhaawacyada dibadda u qaadayay iyada oo si joogto ah loogu diidayay in la siiyo ruqsadaha duulimaadka hawada Soomaaliya dawladda iyo shacabka Puntland oo fahamsan dhagaraha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isha ku haya fargelinta joogtada ah ee uu ku doonayo inuu ku carqaladeeyo amniga iyo xasiloonida ka jira deegaanada Puntland dawladda Puntland waxay si dhow ula socotaa in madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu dhaqaale ku bixinayo in dhalinyaro maleeshiyaad hubaysan ah lagu abuuro deegaanada ka tirsan degmooyinka Xaafuun Bayla Eyl iyo Jariiban ee Puntland dhalinyaradaas ayaa qaarkood loo diyaarinayaa inay gacan siiyaan kana qayb qaataan howlgallada burcadbadeedka ee lagu abaabulayo xeebaha degmooyinkaas